maxaa laygu xidhayaa waxaa lagu xirayaa xabsiyada lagu dhigay inaad xulasho dheer tahay xaakimkii ku uuntiyo nebiyadii xushmayso xaaraanta xira tiri xaalku waa siloon yahay shacabkaa ku xaal marin xilku waa wareegto adaa xukumi doonee xayiraadu way bixi wallaahi shacabka hadduu kaco cid celin kartaayo inaysan jirin powerku waa shacabka ciidan baan celin karin dowlad kale aan celin karin shacabka hadduu kaco cid celin karta male wuuna kacayaa waa ficlan dadka wanaagga aan ku baranay ee social mediaha wanaagga looga bartay culimmada wanaagga farta masaakiinta caawisa khayrka ka hadla inaad aminkaan xirxirataan taas micnaheedu waxay tahay burbur baa soo socda mana rabno anagu burbur idan lama rabno walaalaha yaa tihiin waa dal Soomaaliyeed waxaa tihiin dad Soomaaliyeed oo walaalaha naga qalbiga nagaad ku taalaan burbur idin ma rabne walaalayaal joojiya dulmiga hal joojiyo aad ku wadaan culimada iyo waxgaradka umada alxamdulillaah allahu akbar walillaahi alxamd walaalayaal weli waxaa isa soo daba dhacayo dulmiga loo geysanayo culimada Soomaaliyeed halyeeyga iyo waxtarka Soomaaliyeed taasoo marnaba aanan ka aamusi doonin kana aamusaynin insha Allah taala maxaa yeelay dhibka qofka walaalkaa soo gaarayo adiguna waa ku gaaraya waa ku danqinaya waxa aan u hadlayno ma ahan oo kaliya wadaadada la dhibaateynayo ee waxaanu ka hadlayno waxa weeyaan masiirka ummadda Soomaaliyeed malaayiinta ah ee ku nool wadanka lagu dhibaateynayo culimada Soomaaliyeed culimada faraysa dadka wanaagga xumaantana ka reebayso lama taabto lama dhibaateeyo cuqubadoodu way soo degdegtaa لأنه waxay ku socdaan amar Ilaahi subhanahu wa ta'ala bay ku socdaan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah amarkaas ay ku socdaan amarkaas ay fulinayaan wixii munkar ay arkaan way ka hadlayaan seefa iyo ma wataan wadadka ma laayaan laakiin waxay fuliyaan amarkii Ilaahi subhanahu wa ta'ala معروف كنا ويكهلان إذا مركب ولا ليال العب الله يا شعب كالصومالية اللي هو صديباتين يا علماء ذا يا دتك عقاش وضع آموس كاس هذا مسنتين سوم أوجدين ومضى نجوه الري أنك إن لقونا على ضي لقونا هلاقي صابتنا يا هيد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه حي هايين كوا منكر كاي سمينا أنا اسكريب دبعتها الله سمينا يو madaxdoodu ay sameynayso kamaysan hadli jireen afkay ka qabsan jireen sida awgeed walaalayaal walaalkeen iyo walaalaheen kalaba waxa lagu haysto waxa weeyaan maxaa u hadashay xaqiiqatan risaalay gudbinayeen risaaladaasi oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala rusushiisii uu soo dhiibay wala soo diray ومعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كرريسا انت بي كشيكيون الشيغين واحكى لما هذا الكمركا عدا مثلا وذات كانوا كلا وو هاللي او كليه مثال يربع روينا ندنسي وو هاللي حكومة دمشق كجرتي waxay tiri hala soo xiro Soomaalidu waxay tiraahdaa ay ku mahmaahaan nin hadal sugi waayay waran ma masuugo hadal fariin yar buu diray oo kaliya shujaac waa fariin yar waxaasi waa munkar hala joojiyo ayir maxaa markaa laga rabaa loo dhibaateynaya معناته waxa weeye fariintan uu dirayo waa fariin culus
shacabku wax tusayaa, shacabku wax maaragtaayeen u sheegayaa wixii la dadaboolayay, wixii la qarinayo shacabka tusayaa qabta. ilaan fariintan lama celin karo, fariin sidaha in la qabto weeyaan. sidaasaa fariinta lagu qaban karaa. fariintan baxday lama celin karo. sidaa awgeed walaalayaal, waxaa kaloon idin dardaarmaya oon idin sheegayaa shacabka Soomaaliyeed, xaqa lama caburiyo. haddii la caburiyana xaqa waxa weeyaan banaanku yimaadaa, banaanka ayuu iskeenaa. وإذا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. باطلكو هلكي سيبون كنا قنيا حقنا وافتيميا. وحان مركز كجبغ يا ولا ليال علومة يودتك مدحضة ولا متابتان مدحضة دلك أطلسة إلا أطيعه وحي وناق لو أطيعه wixii munkar markay la yimaadaan la hor istaago waa shay Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu adoonsaday. wa atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. war Ilaahay atii'a wa maqla hadalkiisa, rasuulkiina atii'a warkiisa, ulil amriga adinka idin kamidana warkiisa maqla. fariintii Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisii waxa dhaxlay oo wado oo sheegayo waa culumadii. fariinta culimada ay gaarsiinayeen dadka haddii lagu xirxiro, haddii lagu dhibaateeyo, waxaa ka imaanaysa halaag. ninka madaxda ee dadka caadilka u ah ee wanaagga dadka ku hogaaminayo, ee wadaniyadda iyo maaragtay sharafta iyo qiimaha dadka u horseedayo, haddii lagu kufriyo oo la caasiyana waxaa ka dhalataa halaag iyo hoog baa ka dhaca. لباس الجوع والخوف بالسحرية هالهالبا لبا لسود قالمية درس بدرس كلا دليا وهلاك مركي وحان إذا كجد دقيا إلهي هرتيسة وحان إذا كجد دقيا ولا برنامج يدا إندو بالله بتي علماء اللي جوحر حيريو هلا تشوتشيو هلا إسكا قبطو والله ما تابتان علماء الصوماليات والله ما تابتان kuwa hubaysanoo wax dila ma ahan, afkay ka hadlayaan, dacwadooda si xur ah ayay u fidinayaan. aaway dimuqraadiyadii aad sheegayseen oo lahaydeen qofku wuu hadli karaa, xurriyatul qowlki aaway tan xurriyatul qowl ma ahan. war waxaad sidan ma ahan, waxaan waa qaldan yihiin. xurriyatul qowl ma ahan, ilaahay baa sidan yiri ma ahan, xurriyad ma ahan. qof ma dhihi kara miya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baa sidan diiday, ilaahay subhanahu wa ta'ala baa sidan diiday, xurriyad ma ahan miya? ya idan marka arintani waxay soo dadajinaysaa kacdoon shacab, waxay soo dadajinaysaa dagaal degdeg ah. arrimaha noocan oo kale iska qabta, looma baahno waqtigan, looma baahno in dal dhisan la burburiyo, dad shacab in la isku diro, dhibaato in loo horseedo dadka. laaxiq maaha marka dalka Soomaaliya arrimahan maanta socda wax loo dul qaadan karana maahan. waxaan idin sheegayaa xukuumadda waxaan si gaar ah fariin ugu farayaa, walaalayaal joojiya dhibaatada aad ku wadaan culimada.